أنا بعسنين gabadhii inta uu sabureysay qaarada yar uga soo tagtay hargeysa kula qanacday isagoo halka wardhafoor buu ku yaalaa aragtaan xaaladiisa iyo maaragtay sida duruufo u jexjexeen tiri maqadam dirgaa ma kula noqonaya waa sax weey duruufta la isku naco qofka labada qof oo bini aadanka ah wax walba mar haday iska helaan xalaal isu noqdaan isku sadaan waa waajib in isku sabraan laakiin khiyaamo in la iskhiyaamo qof madaxa aan leedahay xaqna madaxa ay saaran tahay hoostana marka saa u sii jeestan gacanta mid kala qabsanayso warwarka yaa in ku daalin yaan idin ku badin ninkii mubaarak October ahaa gabadhii gabar kale oo Hargeysa la joogta oo fanaanada oo iyada ay macruuf yihiin oo aysan meel dheer kala jirin oo bahda fanka ah oo asma sabad la yiraahdo buu ka raacay farxiyo maanta cid ay taagan tahay muuqaalkii wakaas عدينتي وتاسي هالكا كداو وإتوسو إتابسي اسمعي حبيبي من إساء مسيسيدا إذا ميسا كو يابتي فرددا إما آمن سنتو مها كو عالي مركلي اسمعي حبيبي ورهادي ما عندها إيجا ورسومالي إيو دارت إن أسجي هاي اسمعي بيبي عندها إيجي كعلي مركلة وحكا بدله اسمعي حبيبي اسمعي بيبي حبيبي قرحاي دايهايجي عندهايجي فرحيوي دادكي حابه لا ولا لكو قاتي maxaan ku sameeyaa lagu la hadal dadka kula hadal qoyska kula hadal qabiilka kula hadal maanta cid aan kuugu qaylin karo oo aan ku oran karo war gabadha loo gurmado oo qaranka Soomaaliyeed aan hayn ma jiro qabiil waa seegtay qoys waa seegtay qaraabo waa seegtay dadku kuugu dhow halkaas ka hadlayeen maanta qadar baa ku nikiyay dadkii xabaaraan ku qaatay de waxa ku leeyahay ilaahay qalbiga ku qaboojiyo anigu wax kale oo maanta halka ka oran karo ma leh waa dareemaya qalbadu si ku dilacday iyo xanuunka dareemi karto laakiin hadda markaagii horeetaba waxa la yiri meesha cagtaada dhiganayso waa laga fiirsadaa wiil 20 jir ah oo Hargeysa jooga oo maxaa ku iraahdaayay kuwa dhashay haduu doono hoos ka xiga oo waxa way aan waaya arag hayn oo fudeed kugu soo galay waxay ahayd maanta in aad uga fiirsato inuu bariba si fudud isaga tagaayo waa dareemaysay rati waxa way hayin ah soo jabay rag badan soo qaaday meelo badan soo galay kaasa ku anfici lahaa laakiin wiil yar oo maxaa qaalin ka dhigan buub ah oo heeryada la saaro saa ula didayo oo la dhabacaynaya oo tii uu soo gaaraba tiisi sitahay see ku anficaysa wataas maanta qadarkaas ku dhacay qalbada ku jaban maxaa ku qaban karaa anagu marka maxaa yaa kula hadla ma qoys baa kula hadla ma qaraaba ku bil qabta ma qabiil baa halka kala hadli karaa wakaas yaan aaminsan waa ku celinaa ku celi markale miyu orange lacatush ku celi markale اسمعي حبيبي وكا Soomaaliya jacaylka habaare wariyaa jacaylka ka habaare Soomaali mise waxooda dhan war anagu seenirahna madaxa ay saaran tahay mid kale ma eego halkaas ku dabaysay wakaas soo ma ihid ruux muhiim ah oo macquul oo mulkiyay laabta soo ma tihid nalka maalka daara haddii nalka maalkaaga mubaarak u daartay maano makeeda daminaysa marka kaama maarmo miyahdeesti kaama maarmo adiga macaanay ii macaan madaxa ii saaran tahay wataas mar allaaliyo markuu heestii waxa weeye biliga ma joogo markuu soo qaaday maxaan maanta sameeyaa Soomaaliyeed wax ka dhaha waa taas warta waa laba arag oo laba maqal oo laba arag qof kasta waxa ku waajiba fiidiyowga inuu share gareeyo
jacayl dambe oo been oo la isugu sheekaynayaa ma jiro labadii qof oo dantooda iska dhaxalka ha israaceen laakiin qof dambe oo qof Soomaaliya waa ku jecelahay leh ma arki karo sababta waa aragnaabe dadkii heesaa isu qaadanay dadka isu eegstay xaga ka bax labadii bilood oo ugu dameysay ummadii Soomaaliyeed oo dhan intee qoys baa ku dumay intee qoys baa dartood maxaa ku raadaan ciil maxaa ku kala seexday intee gabar baa ku kaliftay intee nin baa maxaa ku raadaan gabdhaan hees kale yiri noo qaad heesta farxiyo ninkeeda u qaadaso kale noo qaad hadaan miro iyo macnahayna iyada xafido habeen walba halka iga tiri intee role model intee wahaayeen wata halkaas ku soo afkoeen marka jacayl dambe Soomaali baa isjeclaata ma maqli karo maxay tahay waxaas waka laba bilood laga joogo